gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Timajila ayaa waxa uu baaq ku aadan bilic soo celinta magaalada Kismaayo u diray bulshada ku nool magaalada. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay dadka badi ay jecel yihiin in ay dhar qurux badan ay qaataan ama ciyaalkooda ay u iibiyaan balse ay ka sii jeesteen qurxintii magaalada. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Timajila ayaa shacabka reer Kismaayo ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen bilicda magaalada si dadka ku nool ay u helaan goob qurux badan oo ay u soo ciitagaan maalinta ciida. waxaan rabaa saakiinaan ka hadlo qodob ku saabsan ciida inuu ku soo aadan ciida Soonfureed haddii alla idmo waan filayo inay maalmo kooban inay ka xigaan hadda waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkaas muslimka oo soo gutay waajibaadka soonka ilaahay inuu ka aqbalo. waxaan rabnaa haddii alla idmo ciida waxaa la jecel yahay dadku in dhar qurxan la qaato, ciyaalka laga farxiyo, dhar qurux badan loo gado. marka koowaad waxaan dadka ka dalbanaynaa muslimkaa oo alla wax siiyey inay iscaawiyaan. matalana mid baa jira ilmihiisoo aan u gadi karin dharkii ciida, marka guriga dariska kulaha ilmihiisoo aan dharkii ciida gadan oon ciideyn iyo adoo dharkaagu ilmahaagu ciidayaan oo dee ilaahay wax ku siiyey waxaa la rabaa inaad u gargaarto oo ciyaalkaasu ay wada farxaan maalintaas. ciyaalka farxadoodu waa wax aan badnayn oo maalintaas wixii ku simana. labadaa maalmood ciidana haddii la dhaafana wax dana kama le iyo wixii lasoo maray, laakiin labadaa maalmood waxay u baahan yihin in laga farxiyo. taas weeye. tan kale waxaan rabnaa haddii alla idmo dadkii haddii la qurxiyey dadku meelahay ku nool yihiin iyo magaaladana in la qurxiyo. waxaan rabnaa haddii alla idmo in magaalada guryaha weliba ka soo horjeeda wadooyinka waaweyn oo magaalada guryaha ka soo horjeeda, matalan wadadan laamiga ah oo kale oo airboortka aada labada dhinac wadooyinka ku yaala ilaa iyo madaxtooyo sokadeeda ilaa meesha looga baxo. waxaa la rabaa in guryaha ka soo horjeeda wadooyinka in la nuuradeeyo, la qurxiyo, rinji la mariyo. ciid walba markaa waa la bixin jiray. tanna waxaan rabnaa inay la qurxiyo dhowrkaa maalmood oo ka dhiman daalmo ciida, in guryaha la qurxiyo, in maxaan ku yidhaahdaa magaalada la qurxiyo, in wax alla wixii maxaan ku yidhaahdaa isloogano iyo wax fiican oo dadku samayn karaan la sameeyo. waxaan rabnaa in ciidda lasoo dhoweeyo haddii alla idmo oo aynu si fiican oo maaragtay islaamnimada ku jirto aan usoo dhoweyna ciiddeenna inagoo faraxsan. ilaahayna aynu ka barino ciiddeeda inuu nabadgeliyo barwaaqo inuu ku gaarsiiyo. marka waxaan rabnaa in ujeedka ugu weyn waxa waaye guryaha in la rinjiyeeyo. guryaha oo dhan rinji waa u baahan yihiin, laakiin hadda kuwa ishu qabanayso oo ka soo horjeeda wadooyinka la maro oo waaweyn waxaan rabnaa in la nuurad iyo rinji iyo wixii la marin jiray la mariyo, la qurxiyo. meel yani isbedel ciidii lagu soo dhoweynayo inuu ka muuqdaan rabnaa magaalada haddii ilaahay idmo. ujeedka noogu weyna saaka intaa yaroo hadalka u qabanay waa intaas. waxaan u rajaynaynaa dadkan ilaahayna inuu ka aqbalo cibaadadooda, ciidana uu maaragtay ciid barakaysan uga dhigo. aad iyo aad baa umahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. baaqa gudoomiyaha ayaa ah mid u baahan in la hirgeliyo si dadka shacabka ah ay u helaan magaalo qurux badan oo ay u soo ciitagaan maalinta ciida. Nuur Muxiidiin Cali, Sooyaal TV, magaalada Kismaayo.